Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Waa anigoo ah Mustafa Cabdilaahi. Waxaan doonayaa walaal maanta inaan idinla wadaago sababaha amba caqabadaha hortaaga dadka muslimiinta ah si ay u xoreeyaan Qudus oo ah qibladii hore ee dadka muslimiinta ah, kana mid ah muqadasaadka ay ku dhaataan dadka muslimiinta ah marka laga yimaado masjidka xaraamka ee Maka ku yaala iyo masjidkii Nabiga sallallahu calayhi wasallam. Haddaba laba su'aalood baan isweydiin doonaa si aan si fiican ugu ogaano caqabadaha hortaagan dadka muslimiinta ah ee muddada qarniga ku dhow ay ula soo noqon waayeen dhulkoodii barakaysnaa ay Yuhuuddu ka haysato. Inta badanna carabtu waxa ay ku maahmaahdaa idaa curifa sabab batula alcajab, oo uu macnaheegu yahay haddii la ogaado sababtii mushkiladan keentay, la yaabku wuu ka baxaa meesha. Intaa kadib, su'aasha koowaad waxaynu isweydiinaynaa waa maxay sababaha amba caqabadaha ka hortaagan dadka muslimiinta ah inay xoreeyaan Qudus. Jawaabta si aan uga jawaabno dhowr qodob baynu kusoo koobi doonaa insha Allah. qodobka koobaad waxa weeyaan in dadkii muslimiinta ah uu ku dhacay wax la dhahdo gaalo jacayl, welibana dhalinyarta ha u badnaatee. Heer aynu gaadhnay in sidii dharka loo xiranayay iyo sidii timaha loo jaranayayba aynu kaga dayanay iyaga. Waxa kalena hadalkooga badda, halkii ay ahayd inay iyagu nagu daydaan oo ay nagaga daydaan wax waloo wanaagsan sida runta, ammaanada iyo oofintaba, ayaynu inagu kaga dayanay wax waloo xunba oo ay ka mid yihiin beenta, khiyaanada iyo ballanka baxaba. Oo haddii aanaynu inagu isbedelin oonaynu iyaga ku dayan, muslimku sharaftiisii uu horeba u lahaa ayuunbuu lahaan lahaa. Laakiin inagu markii aynu ku dayanay dad xoolahaba ka caqli daran oo ilaahayba dafirsan amba dhoobayntu dhoodhoobtay caabudaya, halkaynu horumar ka gaadhaynaa balwakaasay sheegaan. Markaa waa inuu qofka muslimka ahi diintiisa ku faana ee inuu ka faano maaha. Qodobkaasna waxaan kusoo gabagabayn lahaa waa arrintaynu gaalo daba soconno guul gaadhi mayno. Qodobka labaadna waxa weeyaan, waagii hore waxaa jiri jiray dowlado muslim ah oo ay dadka muslimiinta ah oo dhan wadaagi jireen bariya galbeed meel kastoo joogaanba. Oo hadday noqoto dowladdii Cabbaasiyiinta, dowladdii Salaajiqada, dowladdii Cuthmaaniyiinta, oo wakhtigoodii ay dadkii muslimiinta ah hoos hadhsan jireen. Mar waloo ay midibaabaadana dowlad kale ayuunba soo baxaysay. Laakiin inagu ma lihiin dowlad islaam oo awood leh oo cadowgeena ay gaaladu ka kow yihiin, xuquuqdeena inooga soo dhicisa. taasna dhayal kuma iman ee markii dowladdii Cusmaaniyiinta la riday waxaa dadaal dheer lagu bixiyey oo buur dheer iyo mid gaabanba loo fuulay inaanay dowlad dambe oo muslimiin ah aanay ka soo ifbixin caalamka. In muddada qarniga ah aynu bilaa dowlad ahaanaana waa ta sababtay in dadka muslimiinta meel walba ay joogaanba lagu dhibaateeyo. Laakiin waa in rajadaada koowaad iyo yoolkaaga koowaadba uu noqdaa in dowladda cusub ee dadka muslimiinta ah u soo baxaysa ha dheeraato amba ha gaabnaato muddadii aad ka mid noqoto sahamiyayaasheeda xataa haddaanad gaadhinba wakhtigaas. Taasna waa iga dardaaran. Qodobka saddexaad waxa uu noqonayaa in aynu dayacnay mas-uuliyadeennii qur'aankana laynoogu tilmaamay ee ahayd waacidduu lahum ma statactum min quwatin wa min ribaati alkhayli turhibuuna bihi caduwa allahi wa caduwakum, oo uu macnaheegu yahay diyaarsada intaad awoodaanba ee hub iyo saanadba si aad u baqangelisaan cadowga ilaahay iyo cadowgiinaba. Waayo haddaad dagaal diyaar u tahay cidi ku soo daandaansan mayso. Waxaa caalamka imika dad islaama lagu dhibayana haddii ay markii hore hub ay isku difaacaan haystaan looma soo dhowaadeen xataa in la daandaansado dhaafe. Su'aasha labaadna waxayna leedahay si aynu u xoreyno Qudus oo ah boog qof waloo muslima damqanaysa haddii la taabtaba amba uu maqlaba, maxaa laynooga baahan yahay haddaba. Marka hore intaanan jawaabta gudagelin waxaan soo qaadan doonaa xadiiskii Nabiga sallallahu calayhi wasallam ee uu yidhaahday, qof idinka mid ah hadduu arko munkar ha ku bedelo gacantiisa, haddaanu awoodin ha ku bedelo carabkiisa, haddaanu awoodin qalbiga ha ka naco. Taasna waa iimaanka xagga ugu hoosaysa. Haddaba inagu ma nihin dadkii munkarkaas gacantooda ku bedeli lahaa ee waxaynu nahay dadkii carabkooda ku bedeli lahaa. Waayo cidda la doonaya inay gacanta wax kaga bedelaan waxa weeyaan dowladaha iyo wixii la halmaala. Innaguna waxaynu nahay dadkii carabka wax kaga bedeli lahaa. Markaan ku leeyahay inagu waxaynu nahay dadkii carabka wax kaga bedeli lahaa, keliyaata maaha inaad TV soo hor istaagto dad oo aad wax u sheegto, laakiin waxa weeyaan ugu yaraan in ehelkaaga iyo asxaabtaada inta taqaanaba aad u sheegto waxaas oo aad si fiican uga dhaadhiciso. taasna waxa ay ka dhigan tahay in muhiimadaadii amba waajibkii ku saarnaa aad gudatay aduu. Haddaad intaas samayn kari weydana waxay caddayn u tahay in iimaankaagu aad daciif u yahay. Waxa keliya tee kula soo gudboona waa inaad qalbiga ka nacdo uun.
haddaba haynu jawaabtii u soo noqonno. Qodobka koowaad waxa weeyaan inaynu Ilaahay u soo laabano oo sidii uu ina amray aynu u caabudno. waajibaadka dusheena saaran oo dhan aynu gadano sida salaada, waayo salaadu waxa weeyaan xadhigga u dhexeeya qofka iyo Ilaahay. hadduu qofku salaada ka tagana xadhiggaas uu gooy weeyaan, sidaasaanu ku gaaloobayaa. qodobka labaadna waxa weeyaan sadaqada. sadaqadu waxa ay baabisaa cadhada Ilaahay, dunuubtana way tirtirtaa. haddii aynu sadaqada si fiican u bixinana nabad iyo baraadhiyo wax waloo aan doonaynaba waynu helaynaa. hadalkaygaasna waxaa u daliila xadiisku nebigu yidhahay sallallahu calayhi wasallam irxamuu man fil ardi yarxamukum man fis samaa, oo uu macnihiisu yahay u naxariista cidda dhulka joogta, cirka laydinka naxariisan doonaaye. marka layna leeyahay cidda dhulka joogta looma jeedo dadka oo keliyata, xayawaanka iyo dhirtuna way soo gelayaan. oo haddaad axaadiista nebiga dhegaysato, gabadhba waxa ay jannada ku gashay ay waraabisay isaga oo haraadan. mid kalena waxa ay naarta ku gashay bisad ay xidhxidhay oo ay waxba siin weyday ilaa iyo intay ka dhimanaysay. waanaad arki kartaa heerka ay sadaqadu gaadhsiisan tahay. waxa ay gaadhsiisan tahay heer ay qofka jannada gaadhsiin karto, laakiin waa qofkii u tabcada ee shaqaysta uun. qodobka saddexaadna waa ducada, oo qofkii Ilaahay weydiista wax isagoo mu'mina oo Ilaahay aaminsan, ajar dalabna niyad wanaagsanna la yimaada, Ilaahay wuu ka aqbalaya qofkaas ducadiisa. haddana wakhtiyada Ilaahay la baryayo ee wax la weydiisanayo ayaa sii kala fadli badan, oo qofka isagoo sooman ilaa iyo intuu ka afurayo wax weydiista Ilaahay amba habeenka saqbarhkiisa intuu soo kaco Ilaahay muraadkiisa weydiista waa laga aqbali ogyahay labada qof ducada kale ee wakhtiyada kale caadiga wax la weydiista Ilaahay. waana wakhtiyadu nebigu sallallahu calayhi wasallam inoo sheegay ee uu yidhaahday Ilaahay barya. wakhtiyo kaloo tiro badanna way jiraan, laakiin labadaas uun baynu ka sheegaynaa. qodobka afraadna waxa weeyaan istighfaarta, oo Ilaahay isagoo carabka nebi ka mida nebiyadiisii ku hadlaya oo ahaa nebi Nuux, markii uu qoomkiisa la hadlayay wuxuu yidhaahday bacda acuudu billaahi min ashaytaani arajiim فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. أو معناه يهي وحان كوره ذا إلهي وقوم كيغي استغفارت بذيء إلهي بايدين دم دافي دوناه wuxuu idin yeeli doonaa amba idin siin doonaa roob dhibca waaweyn oo cirka idinka soo daa iyo ubad aad ku indhadoogsataan iyo xoolayaynamaba. waxa kaloo uu idin siin doonaa jannooyin aad ku badhaadhaan iyo durdurro dhulka dulmarayaba. waxaasoo nimceed arkaysaba waxay ku duugan tahay istighfaarta oo la badiyo keliyata. sheeko yaroo imaamu axmed bin xambal ku dhacday oo istighfaarta la xidhiidha ayaan soo qaadan doonaa insha allah. maalin maalmaha ka mid a imaamu axmed bin xambal isagoo geedi socda oo safar ku jira ayaa gabalku wuxuu ugu dhacay tuulo yar. masaajidkii uu salaadii cishaaye ku tukaday ayuu damcay inuu habeenkaa intuu iska seexdo, markuu waagu baryana uu safarkiisi xaggaa u kasii qaato. isagoo sidaa ku tala jira ayaa markii masaajidkii laga wada dareeray intuu nin u yimaaday ayuunbuu ku idhaahday masaajidka waa la xidhayaa ee soo baxa daba xaaji. sheekhiina wuxuu ku idhaahday waar nin safara baan ahoo caawa waxaan doonayaa inaan xaggan iska seexdee, caawa markaan joogo beritole waan tegayaa aroortee idaa. ninkiina wuu diidayo muddo waxay wada hadlaanba masaajidka horta uu ka soo saaray sheekh. masaajidkii markii laga soo saaray ayaa nin roodhi ku iibinaya masaajidka hortiisa oo maqaaxi yar uga furnayd ayaa arkay sheekhii. intuu u yeedho sheekhii ayuu ku idhaahday maxaa dhacay. sheekhiina wuxuu ku idhaahday nin safara baan ahayoo meelaan seexdo caawa ayaan doonayay. intuu soo kaxeeyay sheekhii ayuu ku idhaahday kaale haddaba waayahay xaggan iska seexo. haye oo sheekhiina xaggii uu iskaga nagaaday habeenkii. intaanu sheekhii weli seex ninkiina uu roodhidiisa iska dubanayo. intaa uu roodhida dubanayaba ninkan istighfaartuu akhrinayayo astaqfirullah subxaana allah alxamdulilah walaa ilaaha illa wallahu akbar walaa xawla walaa quwata illaa billah iyo istighfaar kale ayuu ku celcelinayaa. sheekhina intaasoo dhanba uu dhegaysanayayo uu eegayaa ninkan. markii dambe uu su-aal weydiiyey ninkii uu ku idhaahday war waa ninkaas waan ku arkaya caawa oo dhanba istighfaartaasaad ku celcelinaysay, bal istighfaartaasaad ku celcelinaysay maxaa natiijaad ka haysaa oo aad ka faa'iiday. ninkiina wuxuu ugu jawaabay horta intaan istighfaarta waday oo dhanba wax waloon Ilaahay weydiistaba Ilaahay wuu isiinayay ilaa iyo hal mid mooyaane, intii kale oo dhan laakiin Ilaahay wuu iga aqbalay oo waan helay. sheekhii baa weydiiyey mar kaloo ku idhaahday oo waxa weli midha aan laga aqbalin. ninkii baa idhaahday Ilaahay waxaan weydiistay inuu maalin weydiiso imaamu axmed bin xambal
taasina weli iimay suuro gelin, laakiin wax kaloon ilaahay weydiistay oo aanu iga aqbalin ma jirto. Sheekhiina intuu ilmeeyey ayuu ku yidhaahday taasna waa laga aqbalay. Ninkii isagoo yaaban buu sheekhii ku yidhaahday oo sideeba layga aqbalay? Wuxuu ugu jawaabay sheekhiina anigaaba ah Imaamu Axmed bin Xambal, rajadaadii u dambaysana way ku hirgashay. Qisadaas Imaamu Axmed bin Xambal baynu kusoo gabagabaynaynaa maanta barnaamijkeena. tan iyo muuqaal dambena waxaan idinkaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.